kusoo dhawaada nuxurka wararka qodobada aydahaynana waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya walaa xoogan ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ciidamada taabaxsan lafta gareen oo ka hanjabayo meel aan ka fogeyn magaalada Baydhabo taageerayaasha kooxda Arsenal oo xalay isu soo bax ka sameeyay magaalada Muqdisho deegaanada Galmudug oo laga dareemayo guux siyaasadeed xilli dawladdu ay qorsheynayso inay soo bandhigto musharax ay u wadato madaxweynaha Galmudug qodobadaas oo faahfaahsanayaan khayraadayna ay ku soo dhawaada aniga Xasan Calaadan ayaa idin waramaya siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa walaa xoogan waxay ka qabaan siyaasadda dalka iyo sidoo kale marxaladda kala guurka ee Soomaaliya hadda ay ku jirto iyagoo tilmaamay in ciidamadii dawladda ay guryaha u dhacayaan isla markaana dadka ay xirxirayaan wixii agabo ay haystaan ay ka dhacayaan sida ay sheegeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo hadlay waxay dhowr jeer ku celceliyeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalo in doorashada laga heshiiyo si dalka uu uga baxo hubanti la'aanta siyaasadeed waa sida ay hadalka u dhigeen siyaasiyiinta mucaaradka ee ku shirsan magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hal sano dheeriya ugu darsantay kadib markii la ansixiyay dastuurka labada gole baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen madaxweynaha qaranka ku doogay magaalada Baydhabo hadayna wadnaan khiyaaray ciidamadii taabaxsanaa madaxweynihii laga eriyay magaalada Baydhabo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa waxay ku hanjabayaan inay dib u qabsan doonaan magaalada Baydhabo qaarkood oo la hadlay waxay sheegeen inay magaaladaba joogaan meel aan ka fogeyna ay saldhigyo ku leeyihiin markastana ay suuragal tahay in magaalada ay qabsadaan xilli ciidamo aad u fara badan oo dawladda ka tirsan halkaas ay ku sugan yihiin doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa guux badan dhalisay iyadoo tuhun weyn ay ka qabaan siyaasiyiinta aan ka tirsanayn xisbiga JSB kuwaas oo duray doorashada halkaas ka dhacday maxkamadda sare dalka ayaa dib u celisay natiijadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa halkaas ka jira oo tabashooyin ay u badan tahay sidoo kale in la jeedo oo markaas kuraasta si xoogan loo kala qaato dadka qaarna la duusiyo xuquuqdooda waa sida magaalada Baydhabo dadka ku sugan ay ku waramayaan kooxda Arsenal oo ku guuleysatay koobka horyaalka Premier League 22 sano kadib ayaa taageerayaasheeda Afrika waxay isugu soo baxeen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dalka Kenya halkaasi waxay ku cadeeyeen taageerinimada ay u hayeen kooxdan wax ka badan 22 sano oo aysan koob qaadin Arsenal taageerayaashii ugu badnaa ayaa xalay ku soo bandhigay inay ku faraxsan yihiin koobka ay ruuxday kooxda Arsenal Champions League ayay finalkiisa joogtaa waxayna la ciyaari doontaa 30 bishan kooxda PSG oo koobkan championka haysata isla markaana ruuxday waxay doonaysaa inay mar kale koobkan qaado kooxda PSG hadii aysan wadada u galin Arsenal oo hadda doonaysa inay koobka championka qaado horyaalkana wayba qaadatay marka waa la sayaa ciyaaryahanna heer caalami ah ayaa u ciyaaraya labada dhinac xilli ciyaaryahanka muslimka ee markaas Cismaan Dambeelle uu championka kula guuleystay kooxdiisa PSG isla markaana Ballon d'Or-ka uu qaatay haddana wuxuu doonayaa inuu mar labaad ku guuleysto way sayaan labada kooxood oo taageerayaasha midba midka kale wuxuu ku soo bandhigay xalay sida ay markaasi u arkaan koobkii ay qaadeen kooxda Arsenal taageerayaasheeda oo xalay fagaarayaasha magaalada Muqdisho isugu soo baxay iyagoo wata funaanada ay caanka ku tahay kooxda Arsenal deegaanada maamulka Galmudugna waxaa ku sii qulqulaya siyaasiyiinta kala duwan ee kala wata siyaasiyiin ama musharaxiin kala duwan xilli dawladda Soomaaliya la sheegayo inay wadato liibaan shuluq oo ah nin ganacsadaha si weyn ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale siyaasiyiin kala duwan xildhibaan iyo wasiiro iyo siyaasiyiin banaanka ka jooga siyaasadda ayaa ku sii qulqulaya magaalada Dhuusamareeb halkaasina waxaa laga dareemayaa kala jiidashada iyo sidoo kale sida ay u muuqato in markaasi Galmudug doorasho laga qabto doorashada golaha deegaanka iyo midda wakiilada ayaa la qaban doonaa inkastoo wali si rasmi ah loo soo saarin haddana midda madaxweynaha ayaa ku xigi doonta waxaad u malaysaa in qoorqoor oo 7 sano maamulayay dawladdu ay ka maarantay oo ay wadato siyaasi kale oo ay u aragtay in uu ka shaqeyn doono danaheeda marka waa arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya qodobadii nuxurkana waa naginta anigoo Xasan iyo khayraadayna la socodsiinayay mahadsanidin sooma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudeed waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay hal taabasho oo kaliya